حما كاد قلبيك سيسيو قيمة لقوايو ورحت هذا كاد هوتينو ورقة رابيسا وقول لي ملك عليك جعل أنت لوي الرحيم داوديال كلنت فعنا وناكسن ميل كستو aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni habeenka howlada ee Home Cable TV dabcan in badan baan waxaan ku soo martay qaanay dabcan barnaamijkeena fanaaniin badan dabcan oo heeso kala duwan qaata in heesaha badan ee fanaaniintu qaado kulli waxa sameeya abwaan caawa barnaamijkeena habeenka howlka iyo Home Cable TV dabcan waxay noogu martiya abwaan aad u daayar dabcan heesiisuna heeso badan oo saameyn badan bulshada ku keena heesii dambana ah dab waxaan soo dhaweynayaa abwaan maxamed sadiiq burmadoon la yaqaan ku soo dhawo barnaamijka habeenka howlada Home Cable TV adna wala caweynayso hay sadiiq wadawey fahima aad iyo aad baa mahadsan tahay adiga iyo bahda Home Cable TV oo dhinaca kale marka laga eego aanu isku waxnahay dhinaca warbaahinta waa ku dhawahay aad baad mahadsan tahay sadiiq waxaad ka mid tahay abwaaninta daadayar sanadadii ugu dambeeyay adigu liiga Soomaalida haystay in heeso badan oo aad sameeyso oo saameyn badan bulshada ku leh xagga abwaanimada kama maqnin qaybo badan oo aanad ka maqnin baa jirto oo bulshada xagga dambe uga soo falanqeyn doon bal waxaan jecelahay laakiinse bulshadu sadiiq burmad waa kuma inay bulshada ku bartaan in badan baa aad u rabaa inay wax xogtaada ogaadaan sadiiq waa kuma hees kasta oo maqlayaan yiraahdaan waxa sameeyay sadiiq marka sadiiq burmad baan doonaa bal sadiiq waa kuma sadiiq adigoo soo koobaya taariikhdaadii hayeega waya horta aad baa u mahadsan tahay fahimay taariikh balaaran de malihiyo madda yari laakiin taariikh balaaran hadana malihi oo afartan ayga naxin bismillaahir rahmaan horta anu marka xataa daadii baan ilaabay halka laga bilaabay imaka markii la weydiiyo waxaan ka soo bilaabaa sanadkan dhashay 3 4 si kale ku garan waaya aasumaan arkaa iyadoo dhaaftayba meeshii aan isku ogaaba 27 anigu ogaa ma 3 arkaa marka horta ma yiri wad baa jecel bismillaahir rahmaan inta la yaryar yahay baa la jecel laakiin qofku haduu weynaado uu ka baxsanaya marka alxamdulillah de horta nin wariyaa baa lahay wax badan oo iska sheegay garan maayo anigu abwaan iskuma aqaano ma aha maba ihiba hees la sameeyana horta abwaan lagu ma noqdo amar ilaahay laakiin heesaha waan sameeyaa halabuurnimada anigu aan saluugaynin oo ku qanacsan waxaan qoro iyo itaalkayga laakiin haddana waxaan aaminsanahay aan qabaa inaan abwaan ahayn oo title-ka la igu sheegi karin laakiin haddii la doonayo taariikhda qofka maaragtay horta isa sheegna way adag tahay laakiin anyway waxa weeye waxaan ka soo bilaabay waxay noqonaysaa de taariikhdii way dhinacyo badanaysaa iyo xageed ka warramay ma xaggan marka ujeedada waxaad igu wareysanaysid ayuun baan raacay horta de aanu Hargeysaan ku dhashay oo maaragtay 3 baan halkan ku dhashay magaalada Hargeysa marka haddii aan soo taariikhda ku saleeyo dhinaca iyo suugaanta maadaama saanay iyo waxbarashadii hoose dhexe halkan aan ku qaatay jaamacad CSI-dan wax ka bartay laakiin inta ugu badan warbaahintan ku dhex jiray taariikhdeeda inta ugu badan 13 sanadood baan 13 sano ma aha 2003 maxaa ka soo wareegay malaha waa 15 sanadood inta radio Hargeysa ka shaqeynayay 5 sanadood iyada waxaan ka shaqeynayay qayb iyaduna saxaafadoon la mid oo hay'ad Hollandiis oo Free Press la yiraahdo oo wariyaasha tababarta ayaan tababar saxaafadeed ka ahaa marka imaka iyada kama shaqeeyo waa 5 sanadood bay laakiin halkaan aan joogay oo aan mahadiyay oo aniguna aqoon ka bartay waxa ugu weyn ka faa'iideena ay ahayd dad wariyaasha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan baa halka labadii bilood baan qolo ku tababari jiray ilaa 20 marka imaka meel kasta oo Soomaaliya iyo Somaliland magaalo kasta cid baan ka aqaanaa waliba wariyaal markaas ma sha Allah nin dad badan leh ayaad noqotay waa tahay sadiiq goormaad isku aragtay mihnadan abwaanimo ama hal abuurnimo
inaad wax samayn karto oo wax curin karto goormaad isku aragtay horta intaanan isku arag inaad maqashayeen kala mooyaane Soomaalidu waxyaabo badan bay iska aaminaan annagu qolo waxay dhahdaan annagu lafta gaabada ma jabino oo maaragtay awowgay baan naga mamnuucay waxaas hadii aad samayso waxaasa imanaya beliefs noocaas laakiin aan riya lahayn marka waagii dalka laga qaxay 88kii anigoo 5 jira ayaa waxaan xasuustaa xarshin baan u qaxnay markaasa aniga walaalkayo meel barkada ag marayna waxaan maqli jirnay qofkii guuguulo cunaa uu gabayaya inaad maqashayeen kala mooyaan dabadeedna walaalkayo iga weynaaba isna waxa aad u sii fahansanaayo imaka sawirkii toos baan xataa u garanaya barkadii yaroon guuguulo ku dilayno oo isna dhinacan ka soo maray anna dhinacano xus yar bay gashay adu baashii waanu calfanay ha waanu karsano waanu cunayba iyada kuma aanan gabiyina laakiin waa sidii la oran jiray waa dhaqamadii Soomaalida marka ujeedadan uga jeeda waxa weeye in xiisaheedu ilaa 5 jirkiiba uu igu jirayba anigoo gabaygaba teekawigi weyn bay ila dilay kaliya ma dili kareen 5 jir ha 5 jir baan ahaa marka aad ku doonaysa gabaya aad iyo aad mad yaraynay mad yaraynay dheereynaysi waaga mar haddaan guuguulo raadinayay si aan u gabiyo aad iyo aad marka intii ka dambeysay oo dhan waan jeclaa qofka hal abuurka ah uu iga duwanaa dadka suugaanta si gaar ah u jeclaa walow aniga akhriska suugaanta iyo qaybisteeda la iga wanaagsan yahay laymaka haddana waan fahmaa gabay kasta marka la akhriyo si aan dadku hore u fahmin baa laga yaabaa inaan u fahmo laakiin ma qaybo waagii aan iskuulka dugsiga dhexe dhiganayay baa maxay ahaydee standard 7 baan ahaa markii igu horeysay isku dayo ninkii Sacale Aadan la yiraahdo imaka ka tirsan saraakiisha sarsare ciidanka oo gaashaan la maxaa la markii 3 xadigood la dhaafo ayuu yahay oo aad saaxiib ahayn baan ayaanu isku kursi baan ahaan jiray ninkaas isagoo yar buu gabayo yaabal tirin jiray yaaba dabadeetana qofka hal abuurka ah isma ogaada hadii aan la carin arintu waxa weeye imika waxa jira rag badan oo bad ah hibada leh laakiin aan samayn iyo qof kugu daalinaya wax yar oo caanteyn oo aan meel laba u soconba ha kani wuxuu arkay cid uu ku daydaydo marka uu isku dayday hibadiina ma laha laakiin ragii hibada lahaa baa laga yaabaa inaanay cid ay ku daydaan ama xasuusisa haddii ay arkaan dad wax sameynaya oo ay ku daydaan laga yaabaa inay dareeriyaanba oo iyagu ay wax yaab la tiriyaan horta ninkaas aniga igu cariyay oo ku dayday markaas wax yar yar oo maala yacniyaba ayaan yar qorqorayo ila weynaa laakiin bariga oo aan oran jiray bismillaahi halkee wargeyskeebad ku soo qortaa talo iyo waxbaan diiday jiray wargeysan ku soo qoro sanada kadib ayaan dareemay inay jajabay yihiin oo xarfasa oo aan isku ururiyin wax ay yihiin marka suugaantu qofka way la kortaa marba maaragtay adigoo hibadii leh bay kula koraysaa oo arkaysaa waagii hore in adna miisaanka ka baxaysay ama qaafiyada inaad ka tagtaysay aanad isdareensanayn adigu niyo waaga aad baan intii dambe u xiisayn jiray inta ilaa 2000 iyo hareeraheeda wixii ka yar horeeyay wixii ka yar dambeeyay baa suugaanta aan jeclaa waxaan ku yiri habeen walba waxaan tirin jiray gabay malaha 120 meeyda qaybta ururinta iyo kaydinta weligay baan anigu habqankayga iska badan oo waa ku liitaa meelaha dharkun baa lagu meeri jiray iyagoo jeebka ku jira gabayadii ma hayaba sanadii 2001 baa tartan baan maqlay meel la tagay oo waan ka qayb galay istijaabi baan isuruun bil nasiibi waan ku soo baxay kaalinta saddexaad markaas aan horto anigu ama aragtay kalsooni buuxda bay isku qaaday ka waran dawlad markii lagu dad baa kugu yiri wad guuleysatay ha dabadeed niyahow suugaantiiba ilaa muddada wixii ka dambeeyayba xiisaheedii un baa laga masaxay ilaa imaka muddo kooban un baan xiisaynayay suugaanta xiisaheedii waxaana rabitaanka ma soo hadho rabitaan hibe kasta haddaad leedahay laakiin aanay kugu weynayn waxba qurquri maysid ana imaka waxaan arkay ishii aan arkay waxaan jeclay inaan warbixin ka sameeyo halkan gabay ka qori lahaa that's why maaragtay aanan ugu badnayn ba
qaybta halabuurnimada marka waxaa jiray dhowr tartan oo ka qayb galay baa jiray 4 tartan baan ka qayb galay 2 goor waxaan galay kaalinta saddexaad marna kaalinta labaad marna kaalinta koowaad baan galay waa nasiib wanaagune waxba dadka maan dheerayn moogtay marka marna ma qadinba intiiba waa helay ha markii dambe waxaan siin mar dambe ha gelinayaanad waayine ya waa idab darban dad si wadiido marka dambe aad hadhin moogtay waa tahay marka tartamadaas aad gashay kaalmihii aad ku gashay gabayadii aad ku gashay mid wax ma ka sii xasuutaa mid iyo labo والله ما حسوسني فيه ماي عجلت بالله شيء إنه قف كوه يو وبرجع لي جدوبي لكن مدبان هلاي سجى يوتيوب كله جلي ولو أنا قريب سنين كان كالين تكوبات كوب جلاي با أيام لقي أبينا وحكي حسوسته وديرا مركا وحنا كحس ديجان كو كهذي وحق صدق قيبت بو كهذي ديجان كو سيدا و أهانشري سيدا و إما كيهاي iyo sida laga yaabo inuu ku dambeeyo marka sidoo ahaan jiray wad qiyaas kartaa barwaaqada marka laga sheekanayo heesaa abwaan oo dham wuxuu ka sheekeeyay si bari la ahaan jiray leena marka waxba la sawira meesha ma yeelan sida imika leeyahayna dawadiga arkaya deeyo geeli baa cunayaba sida laga yaabana haddana alla u sahleen ma wanaagsanaan doonto haddii alla u sahlay dadkeeguna ay ka dadaalaan wax walba waa dib oo loo habeyn karaa marka maansadu intaasay sawiraysay waxa kamid ahaa waxaa kamid ahaa qaybaha hore waxay sawiraysay sidoo ahaan jiray waxaanay oranaysay gabal dhacay sidii gudcuriye habeen cirku ka gadfoo gibil fuulay oo dayaxi galbaday booraan gunteed libin ka gashood baad goob u tahay googaale iyo xojo garashadood tanna waaba gaar erey gooniyo garwadeeno oo aan laga gudbayn gabay waa la yaab anna waxaan gocdaa geeraar tirshaamaasada godlaa gurta iyo markay hawlaha gadaal u gardaadiyaan ay gaabiyaan maantana gedeed dib baa loo gurto waxa jira gunaad goormay ahayd gayigoo lahaa galaan galoo gaalaa baxoo aan kala go-ayn qoraxduna godkii ka gurguuratay gantay nuurka iyo fallaadhaha gudboon mayay dabagaloy gashay heegadii guulaamayaal wada gooshayaan dhinaciyo garbaha fadad guuxaya isu giijiyeen lamaagadii goormay ahayd gayigoo lahaa tira geelo oo gomodaha ilaa sararaha gudboon iyo gaadadii ay gaamureen oo galab carow geel jira wadaa isu geeyay talabada gudboon sidii gaardigay wada gaalibeen heesa gaara iyo taxa lagu galladay oo ay garanayaan ku guluuluco gurigii ku simay eri dhaban godladay oo gaaxsanaa gaafado candhada soo geejiyo gorof iyo hadhub gingimo dhashii gardhaleefayo isu guuxayaan oo gabanno kale xero gooniyo goob kale ku taallo odageynayaan gudahana baraar edag lagu gedfo gaajaysan oo laga guray dhicii wada goohayaan giiriya camuud ina gees curuub hirdan ay galeen ayradana gaar qool loo gasho gabdhamaalayaan goormay ahayd markaa ma wada xasuusto adu ilaa 200 bayd oo goormay ahayd kolba mar deegaanka iyo xayawaanku sawirayay mar dhaqanka iyo odayaashii tusaalahan waxa ku jiray goormay ahayd odayaal garkiyo xina gurada sare ku gudurtay oo qeydiyo dheer doonaysta googooska iyo haasawo guud ay kala guraan warna kala guntaan goormay ahayd saasay ugu soo noqonaysay marka wuxuu sawirayaa qaybaha dhexe sida weeyma ka yahay yaa guufiyo gabayo waxbadoo gabxa iyo ka dhigay dhul gawaamo oo geedaan lahayn gabayriya habaas kurtin gaaban iyo gufi iyo haraamooye gabood goobaan lahayn geyigaad ogeyd sida doongadoon gar ilaa garkeen geligii xidhnaa een guud ahaan cid u gaar ahayn hormaweynta geel looma geeye foof dad garaad yar oo gasariiray baa midba gees xidhoo dhulku waa go'doon mada iyo giraan lagu goobay oo aan loo galay duurjoogtu gebi waa gabagabo gododiye markay damal iyo gabood waayeen galaan ka gurtoo baxo ma dhex gooshayaan ishinkii gotoo gurmo oo madhoo gabagaba noqdo garas iyo markay guxud iyo caleen waayeen gargoor iyo gees biciid gamasho dhammaan hotiyo gabnood wada noqoy gabaan giddi liito oo godonaan lahayn guul oomanoo gowracan haraad kelimada harkiyo guduudiga habeen gaban raaco oo socod gaadabuur orod gaalibaa dhoobiyo galshood mooye guntii ceelbiyo galeen kuma gaadhayaan yacni waxay sawiraysaa qaybaha dhexo oo iyadana ma wada xasuusinay waxa ku sixigaysa sida laga yaabo inuu mustaqbalka ku dambeeyo oo iyaduna ka hadlaysa haddii aan saa la yeelin iyo haddii aan saa la yeelin yacni dee waa waxa weeye laguma noolaan kara noqon doontaa marka taayabaa ka mid ahayd horta waxaa jirtay iyaguna riwaayado sidoo kale aad jeli jirtay
qaybta jalaaga aad ahayd waagii waxay ahayd ardaynimadii waagaa aan bilaabayay sugaantiin kuu sheegayay ninkaa kaysay ilaa iyo intii dugsigii sare baa jirtay iskuullada waxaan u samayn jirnay siba iskuullada kolba kaan dhiganayo ruwaayadaan u samayn jirnay markaasaa tusaale ahaan xafladaha iyo tartamada iyo waxaasaan uga qayb geli jirnay deedna diraamo yaroo waxbarashada ka hadlaysa ardayga wanaagsan ama ardayga wanaagsan waxaa looga baahan yahay ama ka dadaali waaya halkuu ku dambaynayo fariimo noocaasa xambaarsan laakiin mug weynaaba ayaanu samayn jirnay marka waanu jili jirnay hataa oo jilaabaan ka ahaan jiray inta badan saaqidkaan matali jiray wallahi wax ku doortay garan maayo adigoo xariifad saaq iska jeclayd inaa matali xariifan ahaa xitaa ma ogey laakiin amar ilaahay oo fariinta daraamadu gudbinayso iyadoo saaqida markasta matali noqonaya ayad matali jirtay matali jiray inta badan hataa waxaa dhacday maraan gabar mataliyo indira xidhnaa mid bay qabayba lagama hayo baan malaynaya waa tahay waxa tahay marka dhanka kale loo leexdana sadiiqow suxufi dabcan mihnadan suxufinimo iyo ta'abwaanimo dabcan wax yar bay soo kala horeeyeen haddaanan khaldanayn sidee bay aad isku qaabilsiin kartaa adiga oo maad aragtay mardii xaggii heesihii iyo gabayadii ku jira dhinacana xaggii saxaafadda kaga jira horta waaba kala fogaba amaba waaba isku mid horta isku shaqay hayaanba haye horta labaduna hadal bay ka shaqeeyaan waa laba arrimood oo hadal ka shaqeeya ama kana ha qoro ha codeeyo kana qaab rhythm oo miisaan iyo qaafiyadun buu sheegay waxay qabtaana waa wacyigelin dad maaweelin dad iyo waxbaris dad abwaan haddana laba magac bay kala wataan oo kala weyn weliba isku sina ma aragtay isku aragtina way ku nool yihiin waxa laga aamino waayo wariyaha iyo abwaanka maxaa lagu ixtiraamaa waxaa lagu ixtiraamaa aaminaad lagu qabo inay xil hayaan mas-uuliyad haddii imanka aanad hoonkiiba loo shaqaynin ood magaalada dadka wax u sheegtid cidi kaama rumaysanayso laakiin haddaad hoonkiibil baad ka shaqaysaa ee aad tiraahdo heestaas oo lahay hebel hebel adigoo haddaad doonto qaldaya waa kaybilkaaba sheegay baa laleeyahay sababta maad garanaysaa kalsoonida dadka ayaa lagu aaminay qofka wariyaha ah ka abwaanka ahina kalsooni baa lagu qabaayo waa sababta abwaanku muxuu ka yidhi loo idhaahdo marka xujo weyn baa haysata qofka wariyaha ah iyo qofka maaragtay abwaanka ah goormaad bilowda saxaafadnimada marka waa kuu sheegaya xujo weyn baa haysataa aaminaaddaa lagu qaba inay ku ciyaaraan maaha waa inay ilaaliyaan bilaash kumay helin marka waa inay runta ilaaliyaan waxyaabaha laga aaminsan yahay sideeda u ilaaliyaan su-aashii goormaad bilowday saxaafadda meel saxaafadda anigoo ardaya baan bilaabay 2003 faarax xumaar anigoo dhigta dhinacna wakaaladda biyaha ka shaqeeya ayaan idaacaddana waan ku seexan jiray oo waan kusoo tuugi jiray weligeeda idaacaddaba dabadeetana saasaan idaacadda ku yimid marka ilaa 2003 waan ka shaqeynayay markii dambe waan qayb imikana BBC da wanaga shaqeeyay waa tahay waxaa jirta heeso badan oo sadiiq saameyn loo samayso bulshadu heesaha marka ay dhageystaan qofba horta markaad abwaan fanaanka weydiisad ku tiraahdo heestana siday ku timid laga yaabo inuu ku jawaabo inuu abwaanka ay dhibay ku raado iyadoo walow ay qiso dhaba tahay ama ayna ahayn bade oo dadku laakiin waa haystaan qisooyin dhaba inay tahay imika heeso badan oo samayso qisooyin dhaba jira siday bulshadu u haystaan markaynu hadlayno waayo bulshadu ku wixii loo gudbiyay ay qaataan iyagu hadday taa jawaabteeda waayaan laftirkeeda waxay ku oranayaan qofka qaadaya laftirkiisa khusaysa heeso badan inuu caaw barnaamijkan inoogu jira iyagu dabcan marka ay horta la dhageysanayo saameyn gooni leeyihiin dareen gaarana way wataan haddaynu ku horeyno heestii ay qaado xanda ku weyn maxaan dhahdaa xurmo qoys ninkaad wada dhigteen xumo qoys quruxdaada kaad hoo tiro weli qaraabaysta boqolaal ruux kale ka jecel qalanjo loo hooy dabcan horta marka heesta la eego dawaaba taasi in run tahay ayaaba horta u egta
markaa bal heestaasi qisadeeda ayaan jecel inaad daawadayaasha yaha horta waxay markay maraso weliba dadka waxay aada u sii taabataa markay leeyihiin quruxdaada kaad hoo tiro weli qaraabaysta gabdhahay taabatahay soo maaha kulley markii qofku dee gabdhaha kulley gabadh unbaa qaadasa gabadhna way ka hadlaysaa waana horta dee marxalad jirta iminka wigay taabatahay gabadhay u qabsanaysa oo guri maxaad u samaysay soo maha ayo waxaan qofku markuu ku jiro laftigiisu u naxaya heesta markuu maqlo u dhagaysta dee ku xamanaya ninka uu sameeyay madu boqolaal ruux kale ka jecel qalanjo loo hooyay intaasi horta saameyn gooniya wadataa waayo waana dee wax jira horta in adikaasi hordhaca ma jecli laakiin qisadeeda intaa yaree waa tahay fihimay horta niyow heestu waxay ka mid ahayd 3 heesood oo mar aan wada qoray markaasoo 3 heesood baana mar soo wada baxeen 3 heesoodba waxay ka hadlayaan gabar tirsanaysa cadaalad darri ninkeeda ay ku qabto inaan ku koobnayn marka 3 heesoodba way sii kala maraaxil adag yihiin midi way fahansan tahay inuu dustus wado laakiin weli way la talinaysaa midina way quusatay midina maca dumarka kale kala talinaysaa inaan rag dambaba xitaa inayna guursan bayadu taas saddexaad bay rajo baashay marka qiso dhaba midna ma aha laakiin qofka halabuurnimo markuu samaynayo ama hees samaynayo waxa muhiim ah ama aan anigu muhiimadda siiya inaan wax khaasa oo la taaban karo ama la dareemi karo ama dhacay yacni qof baa imanka waxbaa kusoo dhacay wixii uu markuu ku yimaado kaaga sheekeynaya taygu dhacday maad maqashay halkaasoo kale wax ku jira laakiin haddii kale si guud bay noqonaysaa marka horta wax qiso dhaba ah may ahayn aan kaa dhex gala sadiiqoowe horta daawadayaal baa jira dabcan su-aalo badan isa soo weydiinaya mar kastana feedbacka daawadayaashu ay soo celiyaan iyo dareenkay qabaan baan jeclay inuu ka jaahil saarno oo dee markay wax ku soo weydiiyaan kula maxaa ka jira maadaama adigu gudbiyihii tahay inaad xogtiisi daawadayaasha laga jaahil saaro waxay dhahdaan inta badan qisadu waxay ku dhacday asma dadka qaar waxay odhanayaan qisadaasi waxay ku dhacday xamda kuwiin baa ducaysanaysa xanday ku dhacday daawadayaasha qaar waxay aaminsan yihiin inay asma loof ku dhacday horta maanta abwaankii sameeyey baa fadhiya de waxaan jecelahay bal sida ay tahay qisadu inaad daawadayaashaan ka jaahil saarno xaqiiqatan waxa weeye iska daaba xitaa asma iyo xamdi anuma gabadh baan ahay qisadu ma adiga ku dhaca sadiiqo goorma lay qabay anaa ku dhaca marka horta niyahow sugaanta dadka in maaragtay halka qofba halka uu qaato waa iska okay laakiin asma iyo xamdi mid ay khusuusay midna ma jirto run ahaan sabab ay khusuusayna dee maba garanayaba oo asmana dee waxaabay qabtaaba ninkaa bini-aadmi dadka u wanaagsan axmed uli furnoms maasha allah dumar baabay wax dheer tahay laakiin heesta marka aan raadinayo samaynteeda waxa ka muhiimsan waxaanaad ka hadlaysaa inuu noqdo wax qofku uu iska dhaxarki karo ama dad badan iska dhaxarki karaan marka 3 heesood bay ka mid ahayd oo waqtigaan sameeyey oo aan ereyadooda ku wada akhriyi doono oo maaragtay bal siday isku macno sameynayaan tusaale ahaanta u horeysa 3 heesood iyadoo ninkii ka tirsanaysa inaanu cadaalad u ahayn haddana weli qoys burbur kumay tashan way ka wacyi gelinaysaa marka waxay odhanaysaa jacaylkuba ma biyo dhigin qalbi dhowr wadaagaan oo dhinac mid kala wada adna meel wax kula dhiga dhagax qura haddaad 2 shimbirood ku wada dhufo way dhici isleedahay waanay kuu dhaboobeyn dhab ka sheeg jacaylkoo igu dhaado oo dhowr niyadaad ku dheertay ama waynu kala dhiman yacni halkaa waxaad ka dareemaysaa gabadhaasi inay fahansan tahay oo ay leedahay qalad ka dhacaya dhowr wadaagaan qof ma wada wadi karo dee dhowr qof maaragtay waa run qalbigu dee hal qof guusna ma taagno oo waa tan le dhab ka sheeg jacaylkoo igu dhaado oo dhow beydka kale waxay leedahay in dhaweyd bacaashaqu waa dheeli awgaa dhinac buu ka raran yahay adigaana kala dhimay macnaha dee jacaylkii waxba uu khaldan yahay beryahan way la gardhiganaysaa adigaana sidaa ugu wacane toosiyo wixii khaldan hagaaji dhibna laabta ruux jecel dhukusaadu ugu filan malaha dhaadimaysid waa dhibinaa suuratay marka
waa gardhigasho laakiin quus gabadhaasi ma taagna meeshaasi ma taagna oo waxa weeye waxaad ka dareemaysaa dee waaba tan la talinaysaba ee u sheegaysa maxay ahayd صدق waxaa jira iyadna isla hees kale oo ka hadlaysa uun dhibaatooyinka ay hablo tirsadaan ama dhibaatooyinka ku yimaada ay ka tirsanayaan dabcan iyaduna isla ka hadlaysa uun topic heesta waxa qaadaan mal ogbaad tii hore waxa qaadisay barwaaqo dabcan tan laakiin waa ogbaad haye iyadu waxay taagan tahayba qos xataa aan hadal lahayn ay maaragtay u sheegayso oo qoska ma taagna xataa ku dambaba waxna la yiraahdaa laakiin see ku timid heesta sameynteedu يعني دوي جيران إما كدد رجبيل أنت جورك كحماضي هذا كحماضي حبلوي جيران نية بك قاضي بكون باللي بنم بأن مدوني شو تاجن ما كان محي أورن هي درين كاسون بهلا بروح عبرة درين أذو بالشو يسكت تحتاجو كوي مدي وين تاسون واحد لقاش غيا درين كبلشة إن العبر تبع أنت هذول عبري كري ويدو تمشي وحكم ما يلا ما لكن قف قوني نادو سمايس قف كما سمين أنا قف قونية ولا تنا قف قونية كما سمين قفنا إيه كما ورهن مركا قبل واحد لا ده دوكسي لو بيه هرتا عرقب ماله يعني عرقب واجد كيريري أنا قنقني لكن يا رب بربورنا سماها دم واجد يربولك ونصاص يوم هرك هيلميس وير هيجل لو ديه وسيسنا تشيف ماله وهذا ضرورتها استراحة يقول له ذا الله ضرورتها كلنا وكهذا الغاقة هي ومال مرن exactly هم بينا مويه رجنا حنا شرير ملك أنت هسه يدوسو صوتي وحي ضرورته يجي يوصل عرارني يوصل مرسو حصل جرجار هم بينا مويه وما ركت هلا بلك ولا جاي هلا يومتي بس ما كده ما نتيبه متين رجنا هم بينا مويه رجنا حنا شرير ملك هل بعد لمدة مويه هنكلم ملك هي وأنت أيضا لا حبتاش مويه والله مال بالك قصة على الرجل هي هم بينا مويه رجنا هنا شرير ملك رجي يردم بمال كتورتي وقبل بعد لمدة مويه هنكلم ملك وهانت فليس الله يسكمها هالين كرو هي هدو هذا المعاناة وهي السماع شرعي مركن هوي وداقنو هي بالكلام نقضوا بس ويش بدرين waxba ka dhacay marka hore dawaa qurux badan iyo wanaag iyo marka dambana waa odxo sama adduunka tii kaliya ku noolad buu adiga xidigba kale ma jirto laba bilood buu hooyadii soo eegin habeen walba ku soo wacay see tahay ay antahay xil weyn baa la soo saaraya mooti ay sama hada telefoonka mashquul ka noqon maayo inta horeysa hadhow laakiin waa okay way guriga joogtay leena iska joog hadda telefoonka laga xiranaya bas dabka dhacaa goona hadhow toolana ha iyo wan hawlana iyo wan shaqeynayay waxay la maxad rag badan la soo daristay haye waxay isku geyn weeyay warkii aad had iyo habeen baqaatiyaan ka taagan imanka soo kan ma aha marka haduu hadal macaanaa uu hayal samaa shalay markan hooy wadaagin iyadoo waxa islahay ninkan hadhow marka guriga gashaan waba ka sii darantooda janno ku soo haye marka waxay tiri been dumar ku soo hooy hadhow tan run kala dhaqan ragga wuu halhayso waa waxa haween baday inay halaq nin moodaan loo mahooyda haystaan waxay helay qof buu helin marun buu hagaagiyo kolba hogo tusaale ha farsoo kuma qabin وقصر لما نحت هذه مركب قبليته مع رجل بيكلا تلنسا حتى رجل بيلامين وحتى وضع تلقش الصديقة وهي وواقع قارب درين كان قبا مركب أنا يقول سيدا يلا ملهي لكن كنا في سبب الله بس كير دقيقة هستا عدة دقيقة حتى عدة بس اسكودر مياه خلاص عدة بحتى لو يستاجي معي مركب هستا صدحات أي نكوك نشأ كذا وحيا هيدين heesta ay qaado xamda kuweyn طبعا oo xamda kuweyn iyo kuwan bay la dareen tahay marka iyadu waxa ay gudbinaysaa inay si walba iskugu dayday ninkaas inuu ka waantoobo marka haatan isagay quus ka gaadhay laakiin iyadu sida heestan hore ragoo dhan quus kama gaadhin mid ilaahay mid ku kan dhaamay ku ducaysanaysaa marka waxa jira ilaahay adigu qumanayso ilaahay ba talow dhibtay waxa ku dirday ilaahay mid agsan adigu isoo xilanigu wax fahmi iyadoo hagiisas kama qabto laakiin way bedelaysaa marka waxay oranaysay xuma qoys ninkaad wada dhisteen oo haddana qaatan xuma kaad qalbiga siisay oo qiimo laga waayay
quruxdaada kaad hootiloo weli qaraabaystaa xuma qoysninkaad wada dhisteeno haddana qaatan xuma kaad qalbiga siisayo qiimo laga waayo quruxdaada kaad hootiro weli qaraabaysaa xajirada boqolaal imika guul caruus oo imika gurigiisiiba la geeyo isagoo aan toddoba bixinba gabadh kale gaariga shirka u saaran ama messengerka ku mashquulsan aad iyo aad waa dhacday ama telefoon yaro kale intuu soo qaastay jeebada gaarigiisa ku ritayo maad aragteenay kaan la arag waana caruuskaas marka caadiyan xitaa markaad u fiirsato ragga iyo dumarku waxaan u fiirsaday laba waxbay ku kala duwan yihiin inta marka hore ee aan la isguursanin ama aan aqal la wadaagin wala isku wacan ee la isjecel yahay ninku waa aad buu u toosan yahay xataa khalad ma waqtigiisa dembi buu u haystaa xataa hadday inaan kala yara salaanto hadday hiblaayo ku arkaysa way sooranaya mogta marka waxa dhacday maxaa wacan baad leedahay laakiin sadiiqo cilada maxaa keenaya aniga horta baa yara dhameeyo laakiin hablaha looma taagala xilliga ayayaan la hadlayay walaale habar yara ayay soo garaacaysa hadda ku kale la hadlaysa moogtahay waxa weeye xilligaas soo kale ragga ku daba waasha iyaguna toonbay la kala hadlayaan laakiin at the time haddii ay dhacdo in ay reerkii isku guuleystaan oo ay aqal galaan iyadoo waa daacad dumarku badi legal bay noqdaan way toosan yihiin way quma yihiin xataa may gabadh xun ahaata marka hore gabadhaasi markaas ugu dambaysa dumarku soo kama wanaagsana ragga marka haddii aanay kalifin ficiltan nin xun mushkilada kale waa jira badi gabdhuhu way wanaagsanaadaan ragguna markaas waa shaamba iyagu marka sababta ha i weydiinin ilaa imaka sababtii ma hayo laakiin xagga qaayinimada iyo beenlowga iyo waxaasi waxa u badan ragga soo dumarkuna way qadintaane ma qadintaane marka xagga ma aragtay maadaama iyadu markii oori xalaala laga dhigto ay gurigeedii deetay falilah alxamdu waxay doontaa ku qabtay ay gurigeedii fadhido isaguna mar alla markuu de oori xalaal helo ku tusbaxa ka rigo u dawaalan markaas suumaamada tuurayaaba marka min iyagu ka daacadsanay aad iyo aad marka laakiin maadaama ka samaysaan ma aragtay abwaankii aad dareenka bulshadana gudbinayay dib maxaa waxaasi sababta maxaa keeni kara u malaynaysa wallahi sababta si cad uma sheegi karo oo dad iga aqoon badan baa loo baahan yahay inay waayo waxay noqonaysaa ma biological baa maxay tahay ma diiniyan baa dee dhinac wadiga ka eegayo oo afar baa raggii loo baneeyey oo waaba iska suuragalba inuu tu kale la hadlo xitaa diintii baaban u diidaynba haddii uu si sharaf la u rabo weeyaan oo uu guursanayo kuna filan yahay gabadhana waxaan loo dejiyey xagga minallahida miya maadaama kolley mari ku hagaagaysay aniga markaa taa waa layga aqoon badan yahay laakiin tan isku dayey waa inaan dareenka gabadha cabiro sadiq waxaa jirta gabayaabaad ahayd berigii hore maansooyinkaa tirin jirtay iyo taxaha iyo markii dambe waxaa kugu soo birsantay inaad heesaha samayso adiga heesa samayntan dabcan ma waxa kugu dhaliyay adiga jibbo ku haysay marka laga imaado kii abwaanimada iyo kii tirintii iyo wixii oo dhanba laisku yimaada xagga heesaha samaynta qof isaga dareen uu qabo oo ciila ka keena de inuu heestii sameeyo maad aragteenay fikri isagu qabo de cid kalena uu dhiiban kari waa inuu isagu sameeyo hees kusoo sameeyo kusoo tuura horta waxa weeye halabuurnimada iyo hees samayntu waa isku mid uun maaragtay macnaha laakiin su-aashaada saan u fahmay waxay sax waxa weeye inaad heesaha fanaaniin u dhiibto oo la qaado waa runtaayo waagii hore oo dhan saan kuu sheegay dee ilaa 97kii waan sameynayay sax laakiin may fogeyn de markii aan bilaabay in hees aan leeyahay la qaado anigu maan jeclayn in heesahayga la qaado sababta ma garanayo imakana ha i weydiinin maxaa kugu dhaliyay waan necbaa xataa kun fanaan ba i weydiiyey may unbaan oran jiray iga daaya lama qaadaye waa wax weyn dareenka kaa keenay inaad heestaadii fanaan u dhiibto fanaaniintana kamaan fogaan jirin oo mar walba fanaan baa la fadhiyi jiray oo jeclaa fanaan iyo hal abuur baan meel walba la joogi jiray laakiin markii dambe intaan xidigaha la samaynin guriga axmed la isugu iman jiray axmed weli ibraahim furanle waan la joogjoogi jiray ayuunbaa maaragtay unbaa siyar dee u galay ilaa waa dhex joogtaa wixii baa soo baxaya waa la qaaday waa kuwa imika ha falaqsan
waxa tahay abwaan Sadiq imika saaxadan la joogana hadii uu siraado xagga wax ka bedel heesaha la sameeyo ama showgyada la dhigo bari hore waxa jiray walu fanaanka imdi abwaaninka imika jira aad tahay kuwa ugu caansan waxa jiray bariga hore riwaayado la sameyn jiray 2 saac 3 saac qaadan jiray bulshadu ay u arki jireen entertainment ama madadaalo isla markaana heesuhu ay ka soo dhaxbixi jireen imika laga sameyn jiray riwaayada markay socoto heestii halka ka soo gali jirtay imika maxaa la oran karaa riwaayadihii way yaraadeen ama lamaba sameeyaba waxaad arkaysaa waxa la sameeyaa show baa loo bixiyay imika barigoona riwaayad magac leeyahay halabuurnimadii baa yaraatay macnaheedu horta ma aha aniga halabuurada difaacay haddana anigu shakhsiyan iska hadlana aad baanan lugta ugu wada jirin fanka aniga muhiimadeedu waa dhinaca warbaahinta waxaan soo kordhin lahaa iyo waxaan yeeli lahaa laakiin kama soo hadho haddana wax kasta waagii dalku burburay baa burbureen wax sidiisii ahi ma jiro hadda meelaha soo dadaalay baabay ka mid tahayba ee la dhageystaba meelaha noloshuna way isku wada xiran tahay fanku keligii mudh iskama noqon karo siyaasadii buu la socdaa dawladda fahamkii bulshadu la socdaa qalabkii buu la socdaa arrimo badan buu la socdaa waa tiirar noloshu is wada haya tiirar haddii maqayin kuwa kale si ku taagnaadaan way adkaanaysaa marka waa la samayn karaa daraamooyinkii waana muhiim lama huraana laakiin wax kasta kama soo hadlo aniga kulle ma xiiseeyo xiisaha suugaanta iga maqan saano لأن وحلا لا وحن هيسمي وحلا لا وحن هيسمي هيس فنان ولي أنت نودي بما يدعون ووحقف يويتي والله جاي بقولي إن الندو باركتي يعني حيسها هديك لها دق أنا مركب أول بدي ديار لها يوبوح لها يعني مركب حيسه هو كسب بلا ما حاجة سريع الدولة النمذا هدي أي حيسين السوق إن يدسو dawladnimadu waxay bedeli kartaa fahamkaaga sida wax u fahansantahay xataa sidaad u nooshahay sidaad u labisato inaad sheekh noqoto iyo inaad fanaanad noqoto dawladnimadu saameyn bay ku leedahay marka inuu fanku dhismana qayb bay kaga leedahay dawlad fanka xiisaysaana inama soo marin waayo waagii hore heesta qofku lacag buu ku heli jiray oo magac buu ku heli jiray oo sharaf buu ku heli jiray oo guryo ku heli jiray oo markaas kii laxanku laxan sida imika dhagdhagun kama siinaya si uu u soo hadal qaado madaxweynaha dawladdu ama abaalmarin uu ugu helo wuxuu ka shaqeynayay dhowr week kii tumayay qolada composerka la yiraahdo ee dhaxtaarka music uu sameeyay rag dhan baa ka shaqeyn jiray imika culayskii oo dhamay Axmed Wali buu dul saaran yahay waxa imika ay ku sii hadheen dhulka Soomaalida hadii la eego imika wax riwaayad sameeysa dhulka afka Soomaaliya ku hadla waa Djibouti oo iyadu imika markay de munaasabadaha kale ay sameeyaan iyagu riwaayada oo kooxa jira de iyagu iska maqamsan way ka qayb qaata dawladnimadu waa runta Sadiq waxa jirta hees kale oo dabcan iyaduna qiso dhaba leh oo marka bulshadu ay ilaahdaan horta fanaanku marka uu qaadayo markay waayaan cid uga turjubto waxa la oranayaa isaga ku dhacdo isaga ku sameeysanay moota أما فنان إنت بدن أبوانك لما تهرجديو أبوانك يسوي حاجة ده مستبد كفديا ها أبوانك مركز تيسوي مد لاصو شجوا أبوانك ده تحصل يريمو يانو ده كم مقلانة مركز ده يدو حسارتي فنان قاعدة يد مصر حوسو يستاجي هستن أنشح بقى طبعا وحكود عيسرين وقبل وناكسن هلو dugsiyaal loo dajiyay daalka iga biisa deymo qurux ilwaado indhaha dubata wiilkooda doojisaankaygo darmada wada talaabteeda haye heestaasi horta waa waxa weeye labadeedaba ku dacaysanay marka Cabdirasaaq uu i weydiiyay wuxuu yiri hees mawduucaasa ii samee oo ilaahay mid khayr la aan ku weydiisto marka anna waxaan u sheegayba dhowr sanadood ka hor inaan sameeyay oo anigu aan ku ducaysanayay erayadiina oo koonay qabow baan ku luuray oo qabtay marka heesta markii aan sameeyay habeen keligii baan iska hurtay waxa iska jirtay haasaabo uu iska hawl badan aadiya marka imaka adiga laftigaagu baday la wad garanaysaa aad wada hadlaysaa isaga sida ugu wanaagsan baad wada hadlaysaa moogta sida ugu xun loo hadli karo aan hooyaba wada hadal isaguna ka daran
waxa weeyaan lama waa xad balaa soo eeg martay hadda waa mubdic ninka wanaagsan waa wada haleen haye waa laakiin hadhow toole marka cabaar la sii wada hadlo waa labada qof xaqiiqadooda soo baxdaa haye marka hadhowna waa laysa seegaa ilaa iyagii oo runa bay iska hor yimid marka wada qofna waxba qarin karay xiriir badan baa saa ku burburaa markay muddo sii wada hadlaan marka ma garan kartid qofka wanaagsan haddaad tidhaahdo qof wanaagsan baan u baahanahay dawaaran aalaha la qaninay ma qanini kartid haddii nimanka adiga kula sheekaysto kaba soo qaad balaya haye ma waxay kula tahay inaan dhaliil adigaarkiis xataa shaarkan soo kaadideynaya marka ku imanayo fariid baan ahay haye faxal baan ahay maxaad fahmiba markaa waayey gabadhiina waa saas oo kale walaal horta waan yara tukanaya xitaa koornaysaa in yara sug iyo taraawiixdan ku jiraa marka ilaahay baan sidii waaga tala saaro ta ugu wanaagsan ilaahay ii door ha ku dawaqin ma dooran kartid waana sidaas waaqicu qof dooran karaana ma jiro waraga guursada baan leeyahay gabdhowna guursada ma intii daahirkee muuqatay inuu ninka dur waalan yahay dusha ka arkaysid ama gabadhaasi ay hafto dusha ka arkaysid mise qofa dadkeena caadiga ah ma gudihiisa wax ma si badbaadi kartid duca waxba kaga ma tagin bada waxa marka iska ducayso ina dumaraysa iga dhibtay wuxuu dhanbay ilowsiisa waa laba beyd labada beydka horna wuxuu ku ducaynayaa qof wanaagsan beydka dambana tii xumayd buu ka sheegay uu ka ducaysanaya lawa ducadii una oo horanaya dugsiya loo dajiyay dalka iga biisa dayma qurux lilwaa doo indhaha duwata wiilkooda doojisahankaygu darmada wala talaabtayda وهالكان كدونية هالكيدي قدريني تعدالة الموت دكسي يا الله دكسي يا الله تجيا جالك يقب إسان دايما قروح الوادل عندها دواتوي الكودا دوكساها كيو درمدا ورا طلبتيدا halkiyo dhibtaba iga daryeelisa ilaa haddaad adigu aad u jeclaatay iyana ku yara jeceshahay wala isku dhacaya halkan ka doonaya kaliya waxa burburiye ma taqaanaaba waxa burburiye inaad aad u jeclaato qof waxoogaa ku jecel isla ma keenaysaa waayo la joogisti badan baad doonaysaa la hadal badan baad doonaysaa iyaduna inta in ka yar bay doonaysaa ilaa level meeting wad kala sareysaa waa inaad isku mid noqotaan marka waa lagu karhaya moogtahay marka waa inay wixii isla kaadaan oo halkan ka doonaya halkeedii ka dareemaysa dun xariiran nasab daahiro nolosha iyo daarta iyo dul badan iyo dabacsano ina dumaraysan iyo dul badan oo ina dabacsano ina dumaraysan meelahaas ay marinaysaa beedka kalena wuxuu oranayay kolba dudo gafuurka iyo dibnaha sare u duubta waxay diidi ama aan la garan waxaan ay doonayso oo dabacsanaantii samaha duray ka sii qaada kolba dudo gafuurkiyo dibnaha sare u duduubta waxay diidi ama aan garan waxay doonayso wadabacsanantiyo samaha duray ka sii qaada iduleysa ina diirato ina dacaraysan dabacsani hadaan lagu ogeyn dumarku waa naare qalbigay duleeyaan ka shay daxal ku reebaanay wadadabgalkooga barkood laga ducaystay qalbigay duleeyaan ka shay daxal ku reebaan wadadabgalkooda barkood laga ducaystay يدور الله يو مركز هالكان. قار بابا إله وتعدد بها يمكن أدورنا ساعات كجاس. رجنا وين هستا القادم با نما صاحبنا هيو ورسم الله جاب فيسبوك يسوع لقي أنتوا يجا قري. تبدأنا نلحمس خير الله جاب يستسيف فيه. واجا أنا فيسبوك قاعد بوق ما في عننا. هاي. تبدأنا كومنت تسكيل لقى سوق بحيوان مدي وحكوا سقرا متقامة. ونوني كاس قبل ما الدنيا حنان والدنيا. meel lagu xanaanay wuxuu meel barwaaqo iyo wax uga sheekeeyay markaa neers buu baahay wayna markaa heestaas taas ah saduuq barmad waxa jirta berigii hore abwaaniintu
waxay ka gabi jireen halba marxalada jirta ama hees ka samayn jireen abwaanintu baryahan u dambeeya adiga uun maahina abwaanin badani waxay iskugu soo ururtuun qaybta jacaylka inay ka hadlaan maxaa sababaad oran kartaa waxa weeyaan horta waxay qayb ka tahay sidii markii hore baan ku sheegayay mas-uuliyado badan baa saaran oo taan ku lahaa halabuur iyo wariyaba mas-uuliyado badan oo aan jacayl ku koobnayn laakiin ka hadalka waxani waa inuu wax jira yahay tusaale ahaan waagii dagaaladu ay socdeen oo kale abwaanadu dagaal bay ku jireen hadraawi iyo gaariye iyo cabdiqays iyo hadda dagaal ka sheekeyn maysid soomaad garan waagii kasii horeeyay reeraa la iskugu gebi jiray oo dhaqankaa reera ku salaysnaa hadda reere u gebi maysid laakiin way jiraan waxyaabo badan oo wacyigelin waxbarasho waana laga heesaha wadaniga imika waa jiraan laakiin in la kordhiyo loo baahan yahay marka qaybta ugu badan ee dadka feedbackooga iyo xiisuhoogi markay nimcadu iska badato jacaylka iska bataa dadkuna waxay u baahan yihiin marka nimcadii baa badatay marka ila waxaan waxa weeyaan waxay u xoqaysaa qofba meesha xanuunaysa hadda marka qofba meesha bugtay isaga balbash wata sadiq waxaan intaas oo dambe dib u soo dhiganay on hadba u soo riixanay hadba heeso soo qabanay dabcan waa hees aad u saameyn badan waya heestaasi kuwanaan ka hadlanoo dhanba dee waa hawshii iska socoto banaana heesta waxa qaaday maxamed biike waxaa tira iyo been go' lagu daday weligaa been go' lagu daday horta dee qofkii waa la qariyo go' baa lagu daday moona been go' lagu daday horta maynu arag dabcan heestaasina qiso dhaba iyaduna ka samaysanta bal heestaasi siday ku timiday iyo qisadeedii heestaa maalmaha ka mid ahayd ayaa nimaanu saaxiib nahay annaga oo rag badana ayuu nooga sheekeeyey arrin ku dhacday marka sheekadii waxaan kusoo qoray facebooka araarna waan ka horreysiiyey sababtan araarta ugu horreysiiyey baan horta kuu sheegaya anigu heesaha qiso qof ku dhacday kama sameeyo laakiin taasaan ka sameeyey taana sababtii igu kaliftay baan ka sheekeynaya iyo qisadiiba sababta aanan uga samayn heesaha dadka qiso ku dhacdayna wax kale maaha qof baa ku imanaya inaad arrintaas ay ugu dhacday wax ka sameyn waa qayral mas-uulnima inaan intaan dhagaysta aan hees ka qoro qofku wax ka sheegaya dee isagu hadduu doonaa dee ma hadduu doonaba maaha jacayl qof keligiis kagama dhaco ma ribuu jeclaaday qofku jeclaaday qofkaas waxaan uu kugu akhriyayay qofkaa haddii la weydiiyo waa runtii miyuu odhanaya anaa saa u galay haddaba qofkan ku warramaya hees iga sameeya lama ogol yahay inaad qofkaa kale wax soo weydiiso dee markaa cadaalad ma noqonaysaa inaan public geliyo propaganda qofkan iiga sheekeeyey qofkaa maanan meel kaga dhicin markaa hubsimay u baahan tahay waa arrin iska adag markaa qofka haddaad jacayl iyo wax positive iyo wax wanaagsan uu sheegayo laba isjeclo waad u samee waa iska okay laakiin xaalado adag oo maaragtay iyo qof baa qof xumeeyey iyo in adeerow haddaad markaba dhararag hadda mabaad aragba haddii aad weydiisa ka waran qofkan kale ee qofka san u galaya aad meel walba laga daawadeed ka heesta ilaa waadiga adaa suuro geliyeen meel walba laga daawadee maad garanaysaa aan may ku idhaahdo maanan qayral mas-uul ahayn aad iyo aad marka horta saasaanan waxba uga samaynin anad ugu degdegi wixii lagu leeyahay xabad weligii hees layga sheekiyey qiso taasaan ka sameeyey taana dee way igu duxdayo waa layla gaadayo ninaan saaxiib ahayn baa arrin aad u yar xanuun badan iga sheekeeyey oo raggii meesha joogay bay ka wada muraara dilaaceen facebooka markaan kusoo qorayna dadkiiba way ka wada danqadeen marka waa nin gabar jeclaa 3 sannadood bay sheekaysanayeen 3 sannadood malaha intuu gurigu ugu tegi jiray galab walba wuu tirin karayaa inta jeerow ka maqnaaba galabtu ka maqnaa 3 sannadood galab walba ilaa fiidka waa inuu soo sheekeeyaa ninku waa nin sheekaawiye oo haddaad aragta adigaagaasi aad la balamaysid kama xiisa gaaysid haye qosol baad wadi haye dawaa wallaahi waa sheekaawi kaftamaawi meesha jooga waa lagu ururaa marka gabadh ninka haysataa may jeclayn laakiin relation xidhiidh bay lahaayeen xidhiidh haddii la leeyahay macnaheedu waa xay waa la jecel yahay laakiin uurka marka la eegayo may jeclayn entertainment ma weelo ninkan oo kale ma wax la sii daayaaba
haye galab oo dhan bow halkan ruwaayad bala lacageen marka wuu dareensanaa inaan meesha jacayl jirin laakiin oo waxyaabaha laga hinaaso ayay sameynaysay rag bay kula dul hadlaysaa oo telefonkay ku dul garaacaysaa oo waxba allaale wuxuu ka weydiin kara ma laha waayo isagaa jecel dee haya hadduu jecel haddii uu ogyahay inay jeceshahay uu hubo dee wuu ku qabsan lahaa aad laakiin wuxuu ogyahay inay ku filan tahay deenna nagu kala kaxeen marka isagaa is dhowraya dhib qaba haddii nagu kala kaxeed inuu geli kan dambaa go-aysa dee ilaan isaga intan uu arkaya nagura waahde aad iyo aad ee uu imimanayo ka waa inuu iska dul qaato dulligii oo dhan waxyaabaha uu naga yaabiyey uu nooga sheekiyey waxaa kamid ahaa inuu maalmaha kamid ahayd uu u tegey sidii ay u sheekaysanayeen baa telefon baa soo dhacay way ka qabatay hallow haa cabdiraxmaan walaal haa wallaahi amba walaal waan kuu darsaday saasay hadda leedahay waag fadhiya inankii haye waan ku wallaahi haa dee ii kaa cidna wallaahi lama joogto waa gurigaan jooga wuu jooga hadda ma garanaysa haye ilaa waa nin 2 sanadood iska bislaayo waxba la iskama dhigaya de wuu iska fadhiyaa dan baa ku kaliftay maaha nacasnimo ma yahay ninkan doqonnimana kama ana aqaanaha laakiin dee bahalku markuu qaarkood meelu ku gaarsiinaya moogta aad iyo aad markaad og tahay inaad qofnaba ahayn ay ku galay arrinku dabadeetana ninkii waa buu yimi ay la hadlaysay ka soo gogol jiim hebel ku fariisan jiray ma tu kala fiican baa la soo dhigay haye waa la baray inankana waa walaalkii walaale inankana waa walaalkii wala isbaraya moogta ya haye مسكين وحبا هلا ايوه مراد دلع انا waxna ka weydiin karay masaa ku dhacay waxa dhacday abdaar markii leer fadhi baa lagu yiri abdi ma tagin awa markaa fadhi ma yaalo la bixinay moogta uu iska baxayo wuxuu markaa abdaar sii socday ayaa meel uu maray xitaa ma yaqaano buu soo kala noqday inuu ninkii u buufar la dul galay haye intaas uu kaga ceel baxay waxyaabahan la yaabay bay kamid ahay waxa kale uu sheegay in maalmaha kamid ahay ay ku jiray yaa abdi walaal haa galabta hayma waan yara xanuunsanayaa dabeedna waa yahay buu yiri wuxuu madaxtooyada wax xaflada ka jirtay baa iska tag madaxtooyadii baa habeenkii iska tagay oo dad badan joogaan niyo wuxuu san taagnaa baa qosolkeedii dhag ila qosolkeedu qosolada kuma jiray haye ka calaamadaysan dee waa meel buu ku safe gareysay uu fahmaya waa ka dhinaca eegay waaba iyadiiba dabeedna tushuush baa ninkii ku furmayba maaragtay hayd baa ka galayba naxdintii markaad isbedeshay jirraacadii idu qaadan weyd ilaa gabadhii ku tiri waan xanuunsanaya halkaa ka qoslaysay madaxtooyada dhexdeeda iyadoo shidaba kuma hayso cabdi waabay salaamaysa halkaas iyadoo inaan la taagan ninkii wuxuu yiri xataa madaxtooyada buuqii ka baxayay baa soo yaraaday markiiba hay dhug maqlaya waa wadnihiisa waxaas wax kale waan maqli waayey yacni koomaanu ninkaasi gelin markii uu soo baxay waxoogaa kadib bay u yeedhay dabeedna uu tagayo way bartay inankii ay ka qoslaysay waa walaalkay isbarta waryaha inankana waa walaalkay iyadoo way taa waxaa ku dheeraysa moogta waa walaalkeeda waxaa walaalahan horta isku keenkeena su-aal kama weydiin karo kuma dhaco xataa ma weydiin karo soodigii xanuunsanayay ilaa wuu garanayaa inay hadalka intaa leegay tawdha la odhanaya dee waabad hadal badataybe markii xafladii dhammaatay buu iska soo baxay isagoon su-aal weydiinin aanu cadhoon iyadii baa soo garaacdayba waryaha cabdiyo haa wallaahi bilaahi aniga waad ilu geynaysaa oo walaal maxaa dhacay aniga wallaahi bilaahi inaad noocnaba ahayn gebigaaguba waan kaa yaabayba haye maxaad horta wejigaagaanu ka garanayna horta maxaad la hinaastaa markaan asxaabta la joogno duwaa markuu qabsan waayey bay qabsanaysaa moogta haye asxaabta markaanu la joogno horta maxaadeen aad wejiga la yuruursa hadduu arrinkii ka hadhadlo iyo soodigii nin lagu xanuunsanayay iyo ninkan muxuu ah uu ogyahay inaan gelinkii dambe jarmayso iyo waxaniba haye isagun baynu walaal raallaha wallaahi saa umaan jeedinay waana raali geliyaa balinaan la kala goyn halkay ka timid waana raali geliyaa balinaan la kala goyn waa halkaa
وانا رالي قلي بالنا انا كلا قرنا ولي كمان هلين marka waxaan guud ka saartaa eedaana wali gali waxaan guud ka saartaa eedaana wali galin waana raali galiyaa balina la kala goyn alla garna wali kamaan heli garna wali kamaan heli waxaan guud ka saartaa eedaanan wali galin وانا رالي كليا balina lakala goyn marka ujeedada ay ku timi heestu horta taas ay ahayd marka waxaan ahay nin gacan galo cadaawo loo go'an halkaas horta heestu ka timi erayadeediina waxa kamid ahaa inta la qaado in yaroo kala ku jirta gabayo dugsoon male hardacaar gabood male gaaladu turaal male gocor liita hiil male gacmo furan dhabcaal male marti gaawaheed male gooloogisteed male oo gaajabin male gobna suuriyadeed male gudashana kasgaab male qalbi guran dareen male uma gabata ruux dhana wuu ka gaabsan karayaa nin sawaalan wuu garan oo garaadkii baan jirin nin sawaalan muu garan oo garaadkii baan jirin gocondhada ka toosoo gogol raadso odhan la sababta ninka waalan wuxuu uga kici waayaa barta ضميركي ما شقينين هم isna waa gadiisay ruuxu jacayl galay tala kama go'daanow ceeb kama gubtaanow gura raadabeesow gartayo waxba siya xunbaa ka khaldan qofka wax jecel la caadi ma ila talana kaama go'do waxba kama dhiidhidid ya qof caadi dima ahaansi go'ay caashiq kaliya ku galay qof kula galay ahdiyo misna galay anna wayga go'an tahay iyaduna gub mooyay qalbigiisa gooyo gurmad caashiq ma noqon jacaylkii guyaal jiray waa goof dhankeedo waa bishima guudkood iyo beengo lagu daday garna wali kamaan helin waxaan guud ka saartaa eedaanan wali gelin walaan raali geliyaa balna la kala goyn inkastoo gaf badan tahay hadalkeedu gudan yahay meel goysa daran yahay mid ka taga gunaad yahay ii diida gama yahay iga jara gasin yahay iiraa gandood yahay gubashana ibada yahay kama galabsan eebada waabayda good looma jiraan waxaan galay waase haygu garan iyo ka galgala xaqiiqada ila waxaan oo dhan waxay u sameynaysaa inaan lagu fahmin ka galgala xaqiiqada jacayl lagu gabood falay ilaa waa gumaysiye waxaan ahay nin gacan galay cadaawo loo gigay jacaylkii gabood falay ilaa waa gumaysiye waxaan ahay nin gacan galay cadaawo loo gigay garna wali kamaan heli garna wali kamaan heli waxaan guud ka saartaa eedaanan wali gelin wana raali geliyaa balina lakala goyn marka heestaasina طبعا وهس قيرة بدن درين بدن حبارس waxaan jeclaa daawadayaasha inagoo qiiroonayna naga tagaan iyaguna ay nala qiiroodaan in sadiiq heesa badan baad samaysaa heesaha badan ee samayso ma waxay ku kooban yihiin intan Somaliland mise ma jiraan fanaaniin kale oo dhulka Soomaaliyeed joogto oo heesaaga u dhibto anigu Somaliland iyo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Ingiriis maba kala eege fanaan heesi weydiiyay waad u dhibtaa in what waa u dhiibaa waxaan qoro dhiibaa waati aad baad maadsantahay sadiiq adiga aad maadsan martaqaadkaaga waanu kaaga mahad celinayna waa idinka mahad celinayna fursadda u dambaysa yaad jeceshay inaad halkan ka salaanto bulshadoo dhan baan salaamaya haba kala qaadinba ilaa waad garanaysaa haddii kale inay tira galaysay la dhammayn kari maayo marka waa wada salaamayeen intii magacaaga muuqaaga taqaana annaguna adiga ayaan ku mahad celinaynaa sadiiq maxamed burmad saad nooga ajiibtay martaqaadkaaga heesahaasi falanqeyntooda caawaad nogula wadaagtay barnaamijka habeenka hoblada ee Cable TV martina aad noogu ahayd
intaas daawadayaal waxay noogu dhan barnaamijkeennii habeenka gobolka iyo Hon Cable TV dabcan oo marti noogu ahaa Sadiiq Maxamed Birma dabcan oo ah abwaan heesaha sameeya kamaradahaasi quruxda badan ee muuqaalada isu keenay dhiibay kolba muuqaal intuu sayay waa injineer Maxamed Shire waxay idila socodsiinaysay anigu waa Fiima Yaasiin Muuse waa habeyntii iyo qurxinta injineer Cabdisalaan Cabdirashiid waa barbaarta Hon Cable TV oo idila habeen wanaagsan الله كنا ولي 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 كمان هيلي كنا ولي 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 كمان هيلي وحنقود كسرتا إدانا ولي كلين وانا رالي كليها فلينا